war degdeg ah daawadayaal Saciid Cabdullaahi Dani oo haatan dalbaday inuu wada hadal toos ah la sameeyo taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar. haddaba waxaan kula wadaagi doonaa markaasi qodobo dhowr ah oo markaani ka tanaasulay Saciid Cabdullaahi Dani isagoo xalay culeyskii ugu xoognaa kala kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in 30,000 oo ciidan ay ka qoran doonto deegaanada maamulkaasi Puntland. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi wada hadallada tooska ah uu dalbaday Saciid Cabdullaahi Dani maxaa xilligan ku soo aadiyay in wada hadal toos ah uu dalbado ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani miyuu aqbali doonaa Jimcaale Jaamac Takar oo ah taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka wada hadalka uu markaani haatan mid ka saaray Saciid Cabdullaahi Dani isagoo markaasi qodobo dhowr ah oo markaasi ka tanaasulay. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi waxa ku kalifay Saciid Cabdullaahi Dani in haatan wada hadal toos ah uu la furo ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar ma culeys kaga yimid dhanka dowladda federaalka Soomaaliya mise waxa uu doonayaa inuu markaasi uu iska yareeyo culeysyada kala duwan oo markaasi la kulmayo. waxaan kula wadaagi doonaa markaasi xogihii ugu dambeeyay ee ku saabsan wada hadalka uu markaasi u dalbaday Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale xogo iyo macluumaad dheeraad ah ay ka soo baxayaan go'aanka la yaab kale oo markaasi ku dhawaaqay Saciid Cabdullaahi Dani. balse haddii ay tahay markaasi kugu horreysay aad soo booqato fadlan daawad waxaan kaa codsanayaa inaad YouTube-kana subscribe saarto oo aad gambaleelka furato haddii aad horey noola joogtayna muuqaalka like saar siina share gareey wixii fikirkaaga ahna qaybta hoose ee faalada noogu reebo. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeena mahadsanin daawade. haddii aynu ku bilowno markaasi hogaamiyaha dowlad goboleedka markaasi Puntland ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani meel walba markaasi waxa uu kala kulmay culeys aad u xoogan haddii ay noqoto qaybta markaasi ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar dowladda dhexe ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Xasan Sheekh Maxamuud xalay ay ninkan ku ruqaansadeen ruqaansigii kadib markaan ninkan saacadii ugu dambeeyay la taliyaashiisa ayuu markaasi la taliyay waxa laga yeelayo markaasi culeysyada markaasi kaga imaanaya dowladda dhexe ee Soomaaliya. go'aan ayuu qaatay markaasi haddaba waxa uu markaasi go'aan ku gaaray ninkan lagu magacaabo Saciid Dani in haatan markaasi wada hadal ama heshiis toos ah uu la galo ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar oo ah markaasi taliyihii markaasi danab balse haatan dowladda dhexe ay u magacaawday taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka. Saciid Cabdullaahi Dani marka qodobada uu ka tanaasulay ayaan kula wadaagi doonaa. qodobka ugu horeeya oo markaasi Saciid Cabdullaahi Dani uu ka tanaasulay waxa uu noqonayaa markaasi in Saciid Cabdullaahi Dani uu bixiyo mishaaraadka ciidanka danab oo haatan markaasi ay la wareegtay dowladda dhexe ee Soomaaliya. in ciidanka maalmihii ugu dambeeyay markaasi uu ku soo qulqulinayay ama uu ku soo daadgureynayay magaalada Garowe. qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in Saciid Cabdullaahi Dani ciidankii uu geeyay magaalo markaasi xerada Ligle lagu magacaabo uu ka dulqaado sidoo kalena uu markaasi dib ugu celiyo fariisimahoodii uu markaasi awalka keenay. markii loo fiiriyo markaasi qodobadan oo dhowrka uu Saciid Cabdullaahi Dani ka tanaasulay waxay u muuqataa markaasi in ninkani bisel siyaasadeed uu sameynayo waxaana la leeyahay ninkan waxa uu ku qasban yahay markaasi in wada hadal uu la galo ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar sidoo kalena markaasi uu ku qanciyo markaasi in isaguna uu ka tanaasulo xilka ay u magacaawday dowladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale markaasi loo magacaabo taliyaha daraawiishta markaasi dowlad goboleedka Puntland. odayaal ayaa loo diray guddi ka kooban 13 xubnood ayaa haatan u ruqaansaday dhankaas iyo ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar waxa ayna markaasi ku qancinayaan in wada hadalka uu dalbaday iyo qodobada uu ka tanaasulay Saciid Cabdullaahi Dani uu wax meel la dhigo sidoo kalena markaasi laga taliyo aayaha iyo sidoo kale markaasi nabadda dowlad goboleedka Puntland iyadoo magaalada Garowe maalmihii ugu dambeeyay markaasi laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeedo dowladda dhexe xalay markaasi waxa ay si cad u sheegtay oo aan kaga bashan lahayn in ay duulaan toos ah ku tahay maamulka Puntland ee uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani waxa ayna ku dhawaaqday go'aan dad badan oo reer Puntland ah markaasi ka cariisiyay kaasi oo ah in dowladda dhexe 10,000 5,000
15 kun 20 kun ilaa 40 kun oo ciidan ah markaasi ay ka qoran doonto deegaanada maamulkaasi Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni oo markaasi maqlay go'aankii ay qaadatay dowladda dhexe ayaa durba waxa isu soo taraya in haatan markaasi wada hadal toos ah uu markaasi ka dalbaday taliyihii markaasi qaybta konton afraad Jimcaale Jaamac Takar isagoo markaasi ka tanaasulay qodobo dhowr ah maadaama ayaana lagu soo waramay in uu rabo in uu iska yareeyo culayska uu markaasi kala kulmayo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxda ugu sareysa markaasi dowladda oo ugu horeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyaguna xalay waxay ku dhawaaqeen in Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya uusan wax xiriir ah haatan kala dhixinin sidoo kalena uu sababay markaasi ninkan lagu magacaabo hogaamiyaha markaasi dowlad goboleedka markaasi ee Puntland. qodobada dhowrka ah ee markaasi uu Saciid Cabdullaahi Deni soo bandhigay ilaa iyo haatan lama oga markaasi in uu aqbali doono ama in uu iska diidi doono taliyaha qaybta konton afraad ee militariga Soomaaliya Jimcaale Jaamac Takar. marka haddii uu qaato qodobada uu markaasi ka tanaasulay Saciid Cabdullaahi Deni waa sida uu doonayo ama sida uu wax u rabo inay wax u dhacaan. marka haddii uu ninkan qaado waayo tanaasulka uu sameeyay iyo biseelka siyaasadeed uu sameeyay Saciid Cabdullaahi Deni maxaa ku dhici kara marka Jimcaale Jaamac Takar? xogo iyo macluumaad dheeraad ah ayaa ka soo baxaya haddii uu ninkan qaado waayo tanaasulka uu sameeyay Saciid Cabdullaahi Deni. Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu go'aan markaasi cad ka qaadanayaa taliyaha qaybta konton afraad ee markaasi u magacaaban deegaanada maamulkaasi Puntland. waxa uuna Saciid Deni markaasi ku dhawaaqayaa dagaal toos ah markaasi in la gali doono ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar. taasna markaasi waxa ay noqon doontaa markaasi caqabad xoogan uu markaasi la kulmi doono ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar oo markaasi awood ciidan iyo sidoo kale markaasi cudud military markaasi ku soo bandhigaya deegaanada markaasi maamulkaasi Puntland. haddaba xaaladda siyaasadeed ee markaasi u dhaxayso Garowe iyo Muqdisho marba markii ka sii dambayso cirka ayay isku sii shareeraysaa iyadoo labada markaasi ninka lagu magacaabo Saciid Deni isaguna uu fariin hawada u marsiinayo madaxda markaasi ugu sareysa dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladda dhexena iyaduna saacadii ugu dambeeyay waxa ay ku dhawaaqday in haatan wixii ka dambeeyo Saciid Cabdullaahi Deni iyo dowladda dhexe aysan wax wada shaqayn ah ama heshiis ah aysan ka dhixinin khilaafkoodana banaanka ayuu yimaaday kadib markii ay ku dhawaaqeen in haatan wixii ka dambeeya dowladda dhexe markaasi ay iyadu mishaaraadkooda bixin doonto ciidanka danab iyo sidoo kale ciidanka qaybta konton afraad ee militariga Soomaaliya ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi Puntland. waxa ayna markaasi Saciid Deni ku eedeeyeen in uu bixin waayay mushaaraadka iyo sidoo kale xuquuqda markaasi ciidanka danab ee ku sugan gudaha magaalada Garowe ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saciid Denina culayska ayay ku sii badiyeen maadaama ay ku dhawaaqeen in wixii mushaaraad ah ama wax walba oo ku bixi doona ciidanka markaasi danab iyo ciidanka qaybta konton afraad ee militariga Soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulkaasi Puntland wixii ku baxaya ay iyagu dusha saaran doonaan sidoo kalena ay diyaar u yihiin mar walba in ay markaasi garab siiyaan ciidanka markaasi danab iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee markaasi ku howlan ee deegaanada maamulkaasi Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni haatan waxa uu muuqdaa markaasi in dharbaaxa kulul uu markaasi kala kulmay Xasan Sheekh iyo xulfadiisa iyadoo saacadihii ugu dambeeyay uu markaasi wada hadallo markaasi dalbaday kaasi oo markaasi wada hadal toos ah uu kula sameynayo ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar oo ah markaasi nin laf dhun gashay ku noqday hogaamiyaha markaasi dowlad goboleedka markaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. wixii warro ka soo kordho wada hadalka uu dalbaday Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale Jimcaale Jaamac Takar go'aankiisa iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo haatan arrintan ku howlan daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkeena kale iyo muuqaaladeena xiga.